shirkeena maanta halkan ka furmaya ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan oo shirka shanaada ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan waxa weeye si xoojinta iskaashiga golayaasha khibrad isweydaarsiga iyaduna in wixii la isdheeryahay waxa weeye xoojintu iskaashigu dee waa cooperationkii haddaynaan xoojin lahayn ama aynaan dee wax naga dhaxaynin waxa weeye waa dalkoo dhan baa saa u kala go'aya ilaa dalka xeer jidintiisii baynu nahay dadka iyo xukuumadaha innagaa u dhaxayna sababtoo maaqan maamahaas aynu isla fahmayne sababtoo waxay ku maamaadaa awrka iyo ninka hoggaankaa u dhaxaya hoggaanku ku hoggaaminaya marka inagu hoggaankaasaynu nahay kulminaya shacabka iyo xukuumadaha fulinta marka maadaama aynu nahay waa inaanu inagu xidhiir leenahay oo iskaashi buuxa oo muhiima leenahay wixii khibrado aanu isdhaannana waa inaynu isweydaarsanaa oo isu gudbinaa si aynu kala faa'iidaysano ciido wax bay haysaa waxa weeye qorshaynta barnaamijyada tayo kordhinta tayo kordhinta hay-adaha xeer dejinta baa iyaduna meesha laga maarmaan ah marka waxa weeye waa ujeedooyinka ugu muhiimsan oo shirka insha allah dee isagoo faahfaahsan baynu geli doonaa waxaana insha allah waan rajeynaynaa inaynu shirkii afraad helo meeshii joogay halkaas aynu halkaa ka maqaadno marka inahaas ugu muhiimsan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada halkan waqtiga hadda uu yariyo waa shirka furitaankiisa waxaanu geli doonaa insha allah shaqooyin kale iyo hawlo kale marka insha allah intaas baan ku soo ururinayaa hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu